الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل محمد. كبعد وعن دمان السلام الدرية أنا وقوة لنا مقع قدية قبل قابضة شوينا بيلا برحفان شعب كريسو ماللان بلستوجوغو قاران شعب كراوضل حاسحانا شعب بيلا برحفان هدي جوغان قدان يا دي دبي جوغان معكم سلامنا سلامة الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت مركان كبحو وعن ما تشير جرايدكم قبلني وديل كاروي شركة جرايد وشعب قاضينو الشركي بيلا برحفان وقت لو قبت دويهي قبل قابدي سينا كجرنو هديان كعبلو يدو اي صاحب ذي ذكري كل ما اي كبحين دونان وحيانو اندافو يواي كانوا دونان هديان كعبلو تاريخ الشركة يا أهمية الشركة وليهي دوينا بيلا برعفان وليهي شرويناني وحوي كالفردية عاديها وصوت حنا إلى قرنية تدوية تمناد كيستيلي تمناد كيسغالي تمناد لما شرق وقتي ذا سقرنية ذا شرق ولا قبل جري لكن waxay ku dhixi jireen dhul baadiya oo ama Itoobiya ama Soomaaliland ku jira laakiin wuxuu soo galay qarnigii 20aad waqtiga xorriyadda dhaweyd kaasi hoosteedii ku tokkii shirkii ugu horeeyay magaalada Boorama la iskugu yimid beeluna ay ku dooranayeen markaasi suudaankaasi oo ahaa suudaan marxuum ilaahay u naxariisto سودان الشيخ موسى جامع قودات وستيدي بورما يبيشكو على مسارتي سودانيمو تاوحا كده بيسي او كويكتي يدو بيش عبر حفان دكين مغالة جيبوتي ودنك جيبوتي ايونا شرعين كاسي او اي حيركو سميسينيين حير كاسي oo ay ku heshiiyeen waqtigaasi maadaama ay wadanka Djibouti ku nool yihiin in xeer u noqoto wixii magac oo dhaqana ay sameeyeen oo ilaa maantana xeerkaas jiro. waxa kale oo ku xigay shirkaasi shir kale oo lagu qabtay magaalada Hargeysa oo beesha Harafaan isku timid Afri State-kii oo ay uguna ku doorteen Suudaan labaad وسودان كي جودو الشيخ موسى سودان كله الله نحرسته مرحوم أبيب الشيخ عمرها مركا قرنيا كل يوم لبعضنات دور كاشر ومقالوي كواوي لو قبت هذه تاي جيبوتي يا دي تاي بورما يا دي أربيسة تاي يا داعي قرنيا كوب لبعضناتنا بدوينا بلا عبرافان وعي كودورتين سودان magaalada Boorama halka leeyda ayay ku doorteen taasi oo ay Suudaanka ay u caleema saareen iyagoo dhan oo Suudaan Cabdiraxmaan Jaamac Dawal oo maanta Suudaanka guud ee beesha Abrafaan markaa waxay 2007 bay ahayd markaa maantana waxa lagu dhawaaqay markii bishan aan ku jirnay May 3deedii ayaa waxa lagu dhawaaqay in beeluhu ay ku yeelan doonaan shir xeegu shirkaasina qabanqaabadiisii lagu jiro bisha 9keedii waxa la sameeyay 3 guddi qabanqaabo iyo guddi xeerdejin iyo waxa la sameeyay guddi odayaala oo dhaqanka ah marka guddiga qabanqaabadana waxa laga doortay gudoomiye oo loo doortay Maxamuud Jibriil Yunis Xaaji gudoomiye ku xigeen Idris Ahmed Jigne iyo Xogaye Ibrahim Xaaji Maxamed Suldaan kaasi oo markaasi
ololaheedii la bilaabay qabanqaabadiisii la bilaabay qabanqaabaduna meel fiican bay maraysaa waxaan markaa dadweynaha beelaha Barcafaan meel kastoo joogaan haddii dalka dibadiisa joogaan iyo haddii gudihiisa ku jiraanba haddaan guddiga qabanqaabada nahay waxaan sheegaynaa in tallaabooyin wax ku oola la qaaday muddadiina ay dhowdahay marka waxaanu leenahay walaalahayga dibadda jooga qurba jooga oo aan la socodsiinaynaa inay shirkaasi ka soo qayb galaan wixii iman karaya iyadoo waqti fiican oo samara lagu hagaajiyey oo bisha 17 ilaa bisha 28 inuu dhammaado aan ku rajo weynahay waanu diyaar garaynay wixii qabanqaaba ahayd inteedii badnayd iskale-tankii waan samaynay fulinteediina kulliba bisha 6 baan ku dhawaaqaynaa oo ku dhaqaaqaynaa laakiin iskale-tankii guddiga xeerdejinta ahmiyadda weyn ee shirkan laga leeyahay maaha shir siyaasadeed shir cid loogu tashanaya maaha waxa weeye shir beelaha Barcafaan lagu dejinayo xeerkooga xeerkii ay lahaan lahaayeen ee uu hel madaxa u sarreeya oo ah suldaanku heli lahaa oo uu ku kala hagi lahaa beelaha Barcafaan ayaa lagu dejinayaa marka guddiga loo saaray xeerdejinta qudhadoodu way dhameeyeen iskale-tankii xeerka way dhameeyeen marka iminka way wadaan iyaguna bisha 6 kulliba bartamaheega ayay xeerkii oo dhan soo dhammaystirayaan marka insha allahu waxaan rajaynaynaa in dhalinyar haddii leeyahay haddii oday dhaqmeed leeyahay haddii waxgarad leeyahay haddii culamaauddiin leeyahay in bisha 7 13 loo dhaadhacayo xeegu sidaa darteed waxaan doonaynaa oon ka codsanaynaa walaalahayaga qurba jooga in wax allaale wixii kaalin halkaa uga bannaan ama goobjoog ay ka noqdaan ama dhaqaale wixii uga bannaan ee ay shirkaa ku taakulaynayaan inay maaragtay haddii ilaahayna gaadhsiiyo ay walaalahayo noo soo qadimaan oo noo soo dedejiyaan oo ayna ka dambayn bisha 16 ahmiyadda shirkaasi leeyahayna waa ahmiyad weyn waa shir beeshu xeerkeeda ku dhiganayso waa shir beeshu iyadoo beeshu beel ballaaran ay tahay beeluhu beelo ballaaran ay yihiin oo ay degan yihiin gobolka Gibley ay degan yihiin gobolka Awdal ay degan yihiin gobolka Salal ay degan yihiin kilinka shanaad dadka intaa leeg baa waxaa la doonayaa in meel la isugu keeno si ay iyaguna isku bartaan wixii dhib meel walba taalana loo dirso xalkeedana loo sameeyo xeerkana beel kasta oo meel intaasi oo gobol kala taallaa ay maaragtay iyaguna u guddoomi lahaayeen oo u qaadan lahaayeen oo u gaadhsiin lahaayeen dadka dadweynaha beelaha marka kulliba waxaan aad iyo aad ugu rajo weynahay waddanka gudihiisa in aad looga soo qayb galayo oo erga ilaa 1000 ergaa ayaanu diyaarinay wixii dibadda ergooyinka imanayana waxaanu ka codsanaynaa walaalaha qurba jooga inay magacyadooda noo soo qadimaan si aanu dhulkii markaa ay geli lahaayeen iyo meeshii ay ku nasan lahaayeen aanu sii diyaarinno wixii wax tara oo ay shirkaa wax ku tarayaanna meel wali joogaanba ay maaragtay bisha 16 ka soo horreysiiyaan ayaan ka codsanaynaa marka kulliba waxaan arrinka uga baxayaa walaalahayga kale ama guddoomiye ku-xigeenka ama xogeeyaha oo isaguna sidee wax u qabsoomeen oo dhan oo qoraalahaya ayaan uga baxayaa waxaanan leeyahay meel kasta oo aad joogtaanba waan nagu soo salaamaynaa meel kasta oo joogtiinna kuwii isku xidhan kuwii iska warhaya kuwii ma garanaysaa waxaa ku xidhan dalkooga ilaahay naga dhigo markaa waan ka baxay wasalaamu calaykum waraxmatullahi بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم انت كبعدي سيد القدومية وشيغي شروينها قرشيسان بشة تضبات شنية تلنكيغا والله يراهو شروينها جود بركالة بيلاها برعفان
kaasoo lagu qaban doono degmada Xeebo. waxaan jecel lahay annagu intii taalkayga waan dadaalay 3 guddi baa la sameeyay sida guddiga noo sheegay guddigaygan waxa weeye guddigii qabanqaabada halkan hadda fadhiya waxaan diyaar gareynay markaa annagu wixii magaranaysa qorshihii iclaankii dadka waan wada gaarsiinay cid walba waan gaarsiinay waan u sheegnay xilliga la qabanayo cid walba waxaan gaarsiinay qaaraanka laga doonayo cid walba waxaan gaarsiinay wixii looga baahan yahay xitaa ergooyinka intii ka imanaysa cid walba waan qoondaynay warbajooga ilaa 200 oo qof ilaa 300 oo qof inay ka timaado ayaabaan ugu talagalnay waddankan Soomaaliland gudihiisa 400 oo qof baan ugu talagalnay Ethiopia kilalka shanaad waxaan ugu talagalnay 400 oo qof Djibouti ilaa 200 oo qof Carabaha ilaa iyo 50 ilaa 100 qof inay ka timaado ergooyinka markaa waxaa laga codsanayaa in laga soo qayb galo beelaha barxafan dibad iyo gudumeel kasta joogaanba inay ka soo qayb galaan ama kaga soo qayb galaan dhaqaale ama kaga soo qayb galaan garanaysa iyagoo socda ama kaga soo qayb galaan iyagoo arrinkii garanaysa qaybtooda qaadanaya hadda waxa weeyaan waxaan loo qorshaysan inaan ma garanaysa insiino email iyo ma garanaysa email addresskii iyo ma garanaysa meesha centerkii ay ku soo dhici lahaayeen email addresskii ma kaan afaan 12 furan yahay hadda kaas waxa lagu soo waa hotmail.com way ka wax lagu soo ridi karaa wax laale wixii email ah in la soo xiriiray wixii information looga baahan tiina gudoomiyaha iyo gudoomiyaha xogeenka iyo xogayuhuba waxay leeyihiin meel guri xafiis rasmi ah oo hadda ma garanaysa loo qorshaysan oo aan fadhiisano ayaa jira wixii information halkaas laga soo siinayna haddana waxaan nagu wareejinayaa xogayaha oo isagu haya wixii daatadii ama ma garanaysa waxyaalihii dhacdooyinkii guddiga oo qabteen oo dhan Ibrahim Xaaji Maxamed Shabbaan متسين الدنيا هي كتجينكو وبحنت أنت بدرنا سيدي أي أشياء جنب بي أكنتو هرتر دعتها هاني حق والبقط هاي وحوي أسبابها كلفي شركة مركان أرجني بربركا لكن مدهان دلك بساليين كارهان نبيش بديهية سامين تبدن كل شيء كل كان أرجني بدل السياسة الذي يحميه بحسب مشيد أي كلايسو waxa laga maarmaan noqotay inaan dhaqanka iyo institutionka casriga ee dawliga ah labadaba dib loo eego dib u habeyn aan ku sameeyno sidii loo leeyahay qaadi lahaa institutionka cusub iyo maanta wadciga jadiidka Soomaaliland iyo sidii dhaqankii dib u soo nooleyntiisii iyo lagu gudbintiisii xeer dhaqan loo nidaamin lahaa waxaan u aragnay inay tahay mid laga maarmaan sida darteed kolkii wax garadka culimada diinka oday dhaqameedyada haweenka dhalinyarada guud ahaan ganacsatada xubnaha qaybaha kala duwan ee bulshada habar cafaan ay isku timiday waxa la isla gartay qarnigan 12aad inay laga maarmaan tahay in shirweyne labaad oo ku xiga kii lagu soo saaray suldaanka Cabdiraxmaan Jaamac Dawal كان يهي مدحير دجين حق دقن ديال الصمية أي تهي وحن قرنين لقى من مارمان كان يحل لقى وحل الدور تشدي دين شيئين بدية صدح دا سقال كي بيش شنات جد بدي قبان قابض وهدنا ينقى رجان كسريع بدي قبان قابض بالدنيا يبين يحكي ياهان النور دورتي tan iyo xilliga waxaan qaadnay talaabooyin badan sida gudoomiyuhu cadeeyay oo wax ku oola talaabooyinkaas ay ka mid yihiin inaan registrationkii sameynay inaan diiwaan gelinay xubnihii dhaqanka ee dhaqaale inaan qeexnay oo koobnay ergada shirka ka soo qayb galaysa ee suuragalka ah oo ka dhignay 1200 oo ka kala socota dalka gudihiisa Soomaaliland gudihiisa kilalka shanaad Jamhuuriyadda Djibouti iyo qurbaha kale ee dibadda ergadu inay noqonayso waxaan qeexnay muddada shirka furitaankiisa oo u dhaxaynaysa 1 ilaa 15 bisha 7 muddada xiritaanka shirka 28 ilaa 30 bisha 7 ku ekaanaysa intaa waxaan kaloon soo raacinay xeer hoosaadyadii guud ahaan hadday tahay qaab dhismeedka abaabulka hadday tahay ma garanaysaa waajibaadka laamaha shaqada hadday tahay qaybaha oo dhan
iyagana waan diyaarinay waxaan qabanay invitationskii ganacsatada waan iskugu yeedhnay waxaan samaynay wacyigelintii haweenka iyo dhallinyarada sidaa darteed qabanqaabadii sidaasay taayiro fiican ugu dhaqaaqday waxaan ka rajaynaynaa walaaliheenna kale iyo inta kale ee danaynaysaba inay iyaguna sidaa ula socdaan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatu